kulanti wacan wanaagsan daawadayaasheena halkan waa Goal TV ku soo dhawaada muuqaalka maanta gool sheekooyin xiiso badan ayana ku daawan doontaan ee qayb ka noqon doonta kooxda Manchester City oo dalab u gudbisay daafaca dambe kooxda Leicester Harry Maguire kooxda Barcelona oo markale hanatay difaaca horyaalka dalka Spain xilli Lionel Messi isagoo kabtan ah markii ugu horeysay kooxdiisa koob la qaaday waxyaabaha kala daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona ciyaaryahanada Gia oo dib ugu soo laabtay naadigiisa PSG xilli laacibka uu wacdar ka dhigay kulankii xalay oo ciyaaray liigoonka dalka Faransa maxaa laga diiwaan geliyay kulamada maanta la ciyaari doono Manchester United iyo Chelsea sheekooyinka kulankaasi laga diiwaan geliyay xidigaha maqan kuwa soo laabtay waa dhageysan doona waa daawan doontaan warbixinada kale waxa qayb ka ah Arsenal oo iyaduna maanta kulan ciyaari doonto xilli ay wajahayaan kooxda dabacooyinka ee Leicester City kulankaasi sheekooyinka laga diiwaan geliyay waa daawan doontaan suuqa leibsiga ciyaartooyda qayb ay ka yihiin barnaamijkan kulamada la ciyaari doono iyo kuwii xalal la ciyaaray muuqaalka maanta gool qodobada ay kuwa kala ku daawan doontaan dhanka farsamada Karama ka qaabeen doona anigoo hero ayaa halkan ka soo jeedinay mar kale muuqaalka maanta gool markale maalin wanaagsan daawadayaasheena muuqaalka maanta gool ayaan gudagali doonaa sheekooyin xiiso badan ayaad ku daawan doontaan qodobada waxaan ku bilaabi doonaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid laacibkeeda dambe ee Rafael Varane ayaa waqtigan sheegay kooxda Real Madrid inuu isaga tagi doono daafaca dheer ee Faransiiska sida faafahinta warkan uu ku eegi doono Oriana Bashir daafaca kooxda Real Madrid Rafael Varane ayaa la soo warinaya inuu ka mid yahay dhowr ciyaartooy oo aan mustaqbal dheer ku lahayn kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Rafael Varane ayaan loobin mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta ee Real tan iyo bishii January aan ka soo gudubnay waxaana la xiriirinayaa kooxo ay ka mid yihiin Manchester United, Paris Saint-Germain iyo Liverpool oo dhammaantood doonaya inay qaataan adeegiisa. Leelaati jirkan ayaa isagu waxa uu ogolaaday ka tigitaanka gegida caalamiga ee Santiago Bernabeu. Majalada caanka ee Marca ayaana daabacaysan xidigani uu go'aansan doono in kooxda uu ka tago inkastoo Zinedine Zidane uu isku dayi doono inuu ku qanciyo in kooxda kubadda cagta Real uu sii joogo. Madrid ayaa rajeynaysa in safkeeda ciyaartooy dhowr ah oo adag lagu soo biiriyo waxaana jirta ciyaartooy badan oo gadoodka ah kooxda kubadda cagta Los Blancos waxaana ku jira 7 ciyaaryahan kuwaas oo aan doonayn in ay ku sii hadaan kooxda kubadda cagta Real Madrid. wali waxa daawanaysan muuqaalka maanta gool kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa doonaysa daafaca dambe kooxda Leicester City Harry Maguire xilli daafacan ay ku dagaalamayaan kooxo badan ee qayb ka tahay naadiga Manchester United sida faafahinta warkan uu ku eegi doono Ahmed Maxamed Xasan Ahmed Daacad. naadiga Manchester City ayaa lagu soo waramayaa tababaraheeda Pep Guardiola inuu xiiseynayo ciyaaryahanka lagu magacaabo Harry Maguire kaas oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City qaybta dambe dhanka daafaca. Tababaraha u dhashay wadanka Spain ee leeliya kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa aad u xiiseynaya daafaca dambe ee kooxda Leicester City ciyaaryahanka u dhashay wadanka Ingiriiska waxaana uu sheegay inuu taageero buuxa u yahay
balse naadiga Leicester City ayaa ku doonaysa ciyaaryahankeeda qiimo ka badan 90 milyan haddii ay dhaceysaba inuu ka tago garoonka ay ku ciyaarto kooxdaasi Leicester City. King Power waana qiimo ka badan xidiga markaa Van Dijk lagu iibsaday oo 75 milyan bishii January Southampton kaga yimid isagoo ku biiray kooxda Liverpool. Harry Maguire ayaa 100 kulan kasoo dhex muuqday kooxda kubadda cagta ee Leicester City isagoo ka yimid kooxda kubadda cagta Hull City. kooxda uu macalinka u yahay Brendan Rodgers ayaa u dhaqaaqi doonto haddii ay lumiyaan daafacan xidiga lagu magacaabo James kaas oo dhanka daafaca ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Burnley. qiimaha ay ku doonayso Leicester City waa qiimo qaali ah, laakiin naadiga lagu magacaabo Manchester City ayaa isku dayi doonta saxiixa ciyaaryahankani. si walba noqoto Pep Guardiola ayaa cadeeyay inuu xiiso u qabo ciyaaryahankan si shakhsiyan uu u taageero xidiga lagu magacaabo Harry Maguire kaas oo Manchester United ay doonaysay xilli ciyaareedkii hore ama sanadkii hore. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa hanatay horyaalka dalka Spain kadib gool muhiim ah xalay ay gaartay naadiga Blaugrana xilli Lionel Messi oo isagoo kabtan ah markii ugu horeysay naadigiisa kula guuleystay koob. sida faahfaahinta warkan uu ku eegi doono wariyaheenna Cabdullaahi. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xalay guul ka gaartay naadiga Levante waxaana ay hanatay horyaalka Liga Spain iyadoo Lionel Messi uu sameeyay rikoor cajiib ah. Barcelona ayaa hal gool eber uga badisay xalay kooxda Levante waxaana ay xaqiijiyeen inay ku guuleysteen horyaalka Liga Spain markoodii 26aad. kabtanka Lionel Messi ayaa xalay isagoo kabtan ah kooxda Barcelona kula guuleystay horyaalka Liga. Lionel Messi ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Barcelona ee taariikhda kooxda kula guuleystay 10 horyaal oo La Liga Spain mana jirto ciyaaryahan kale oo 10 goor la qaaday horyaalka La Liga kooxda Barcelona. xidiga reer Argentina Lionel Messi ayaa 10 horyaal La Liga oo uu la qaaday Barcelona waxa uu kula guuleystay xilli ciyaareedyadii 2004, 2005, 2006, 2011 ilaa 2015, 2016, 2017, waxaana soo kala dhaxgalay labada kooxood ee ka dhisan caasimadda Madrid ee Real Madrid oo ka ilaaliyay in rikoor xiriir ay ku qaadaan 10 jeer uu ku qaaday Lionel Messi. si kastaba ahaatee Lionel Messi ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee u dhalan Spain taariikhda horyaalka La Liga kula guuleystay 10 jeer kooxda Barcelona. weli waxaad daawanaysaan muuqaalka maanta iyo gool. sheekooyinkeena kale ciyaaryahan Neymar Jr ayaa dib ugu soo laabtay garoomada muddo uu dhaawac kaga maqnaa naadigiisa Paris Saint-Germain xilli laacibku xalaw ka soo muuqday kulankiisii ugu horeysay dhaliyay gool caawiyana sameeyay. sida faahfaahinta warkan uu ku eegi doono Maxamed Daawud. xidiga xulka qaranka Brazil ee kooxda kubadda cagta ee PSG Neymar Jr ayaa markii ugu horeysay dib ugu soo laabtay garoomada tan iyo Janaayo 23 sanadkan 2019. laakiin soo laabashada Neymar ee kooxdiisa PSG ayaa murug ku soo dhamaatay kadib markii ay kooxda Rennes awooday in rigoorayaal ku garaacdo PSG finalka tartanka Coupe de France. inkastoo Neymar ku soo bilowday shaxda kooxdiisa PSG isla markaana uu shabaqa soo taabtay, haddana kooxdiisa PSG ayaa ku fashilantay in ay ku guuleysato koobka Coupe de France iyaga oo rigoorayaal ku lumiyay isla markaana kooxda Rennes koobka hanatay. laakiin Neymar ayaa eedeyn soo jeediyay qaar ka mid ah kuwaas uu ku duray in ay hadlayaan in ka badan intii ay wax dhageysan lahaayeen, wuxuuna Neymar muujiyay sida aanu ugu faraxsaneen xaaladda kooxdiisa PSG. Neymar ayaa ciyaartooyda kooxdiisa PSG u sheegay in ay rag ku noqdaan qolka lib isagoo ciyaartooyda daayarta ee PSG ku eedeeyay inaanu dhaga lahayn isla markaana ay hadlaan in ka badan intii ay wax dhageysan lahaayeen. Neymar oo isagoo caro ka muuqato hadlaya ayaa yiri, waxaan u baahanahay inaanu sidii ragga ku noqono qolka libiska, waxaa waajib nagu ah inaanu in badan midowno. waxaan arkay ciyaartooy badan oo daayar ah kuwaas oo aan xaqiiqdii guuldareysan, laakiin iyagu waxay in badan leeyihiin ayuu yiri Neymar. Neymar oo eedeyn u soo jeedinaya ciyaartooyda daayarta kooxdiisa waxaa iyaga waajib ku ah inay dhageystaan in ka badan inta ay hadlayaan. mararka qaar waxaa hadlaya ragga khibradda badan leh, iyaguna waxa ay ku soo jawaabaan tababaraha ayaa hadla wayna ku soo celinayaan. tani ma aha sida kooxi meel fog
dhinaca kale ciyaaryahanka dunida kana tirsan kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa gaaray xalay goolkiisii 600aad ee heerka kooxaha. wiilka Portugal ayaa wali waqti wacan ku qaadanaya kooxda Juventus ama marwada duqda kadib markii uu dhaliyay gool kulankii barbaraha xalay la galeen naadiga Internazionale ka oo qayb ka ah horyaalka dalka Talyaaniga Serie A. ciyaaryahan Ronaldo ayaa dhaliyay goolka barbaraha markii la eego kulanka. Juventus ayaa hanatay horyaalka markii 8aad oo xiriir ah markii la eego horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. marwada duqda ayaa ah wali kooxda horyaalkan markii la eego fiida sare ah la leeyahay koox kula dagaalanta markii la eego ama ka qaada koobka. Ronaldo ayaa sidaa ku dhaliyay goolkiisii 600aad guud ahaan kooxii u soo ciyaaray xirfadiisa. kooxdiisa Real Madrid ayuu dhaliyay 450 gool halka United-ka uu ugu soo dhaliyay ama uu dhaliyay markii la eego 118 gool. Juventus oo ka tirsan yahay haddana ku soo biiray CR7 ayaa u dhaliyay 27 gool halka kooxdiisii hore ee markii la eego carruurnimada Sporting Lisbon uu dhaliyay 5 gool oo qura taa oo ka dhigan wadar ahaan kabtanka Portugal in heerka kooxaha xirfadiisa ciyaareed uu ka dhaliyay 600 gool. dhinaca kale waxa Ronaldo noqday ninkii ugu horeeyay ee ku guuleystay horyaalka Premier League la liigaha Serie A isagoo ciyaaryahan ah wuxuuna hadda haysaa 3 horyaal oo Ingiriis ah 2 horyaal Spain iyo 1 horyaal Talyaani ah. wiilka Portugal ka soo jeeda ayaana markii la eego ah nin xirfadiisa ciyaareed wali waqti wacan ku qaadanaya lagu tilmaamay inuu yahay mashiinka dhanka goolasha ee u fududahay mar walba inuu shabaqa gaaro. dhinaca kale kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Leicester City ayaa wada ciyaari doona kulan ka tirsan horyaalka xiisaha badan ee Premier League sida faafahinta warkan uu ku ogi doono Cabdullaahi. kooxda Arsenal oo guuldaro kala kulantay kooxda Wolves ayaa booqan doonta kooxda Leicester City kulan ka tirsan horyaalka Premier League. dagaalka loogu jiro afarta sare ee loogu soo baxo tartanka UEFA Champions League ayaa mid xiiso gooni ah wata xilli ciyaareedkan xilli United iyo Chelsea oo qayb ka ah kooxaha ku dagaalamaya afarta ugu sareysa horyaalka Premier League fasal ciyaareedkan ay maanta fooda istari doonaan. tababaraha kooxda Leicester City Brendan Rodgers ayaan qabin dhaawacyo cusub. Dani Amartey ayaa xidiga kaliya ee dhaawac uga maqan kooxda Leicester City kulankan. kabtanka Leicester City Wes Morgan ayaa ku soo laabtay kooxda kadib markii uu seegay kulankii ugu dambeeyay. dhanka kale kooxda Arsenal ayaa qiimeyn doonta gooldhaliyaheeda ugu sareeya xilli ciyaareedkan ee Pierre-Emerick Aubameyang kaasoo dhaawac ku seegay kulankii ugu dambeysay oo guuldarrada kooxda Gunners kala kulantay naadiga Wolves. Aaron Ramsey iyo Dani Suarez ayaa weli dhaawac uga maqan kooxda Gunners halka xidigaha Bellerin, Rob Holding iyo Danny Welbeck ay ka sii maqnaan doonaan kooxda kulankan ayaa la daawan doonaa 2 duhurnimo xilliga geeska Afrika waxaana dhexdhexaadin doona garsooraha caanka ee Paul Train. guushii ay Leicester City garoonkeeda kaga gaartay xilli ciyaareedkii hore kooxda Arsenal waa guushii ugu horeysay kadib 24 kulan oo aysan wax guul ka gaarin kooxda Arsenal horyaalka Premier League. wixii guushaas ka horeeyay waxay kala kulantay 7 barbardhac iyo 17 khasaare. Arsenal ayaa wax guul darro ah oo xiriir aysan ka soo gaarin kooxda Leicester City kulamada banaanka tan iyo xilli ciyaareedkii 1981 iyo 1983. kooxda Arsenal ayaa la kulmi kartay guuldaradii saddexaad oo xiriir markii ugu horeysay 13 bilood kadib. Jamie Vardy ayaa 6 gool ka dhaliyay 7 kulan ee ugu dambeysay uu ka hortagay kooxda Arsenal. kooxda kaliya uu Jamie Vardy goolasha ugu badan ka dhaliyay horyaalka Premier League waa Liverpool oo ka dhaliyay 7 gool. wali waxaad daawanaysaan muuqaalka maantii gool meel walba joogtaan waxaan ilaahay dohor wanaagsan. dhanka kale haddii Gunners maanta ciyaareyso waxaa la sugi doonaa mindhaha caalamku eegi doonaan kooxaha ku dagaalamaya afarta sare ee lagu soo baxo tartanka Champions League. Manchester United ayaa mar kale gurigeeda ku sugaysa kooxda kubadda cagta Chelsea xilli bartamaha isbuuca la xasuustay in Manchester gurigeeda guuldaro kala kulantay naadiga Manchester City daris wadaagyihiin kulanka lagu magac daray Manchester Derby iyadoo maanta kooxaha wada dheeli doonaan kulanka xiisaha badan ee loo yaqaan Super Sunday kooxaha United iyo Chelsea. kooxda Manchester United oo dhaxdabaalanaysa xaalad aad u xun ayaa mar kale waxay garoonkeeda ku soo dhaweynaysaa kooxda Chelsea oo hanqal taagaysa booska afraad. kan waa kulan lagu kala saari doono kooxaha rajada ka qaba inay dhameysan karaan booska afraad iyo in kale iyadoo la ogyahay in Chelsea iyo Arsenal ay haystaan fursad kale ay ku imaan karaan Champions League balse waa haddii midkood uu guuleysto tartanka European League. sheekooyinka labada kooxood ciyaaryahanka qadka dhex United-ka Andre Herrera ayaa laga yaabaa inuu ku soo laabto kadib markii uu saagay 6 kulan ee ugu dambeysay ka oo ku maqnaa dhaawac dhanka muruqa ah. Phil Jones iyo Scott McTominay ayaa saagay kulankii bartamihii isbuucan ila qaateen kooxda City waxaana haatan shaki la gelinayaa kulanka maanta oo Axad ah laakiin David De Gea
ayaa booskiisa ilaashan doona inkastoo dhowaanahan qaladaadkiisu uu batay. dhinaca kale ciyaaryahan garabka uga ciyaara Chelsea Callum Hudson-Odoi ayaa garoomada ka maqnaan doona inta ka dhiman kala ciyaareedkan kadib markii ku dhaawacmay kulankii Burnley. N'Golo Kante ayaa shaki laga muujinaya kadib markii loogu saaray dhaawac kulan ciyaareedkii ay barbaraha la dhaafi waayeen Burnley, laakiin Anthony Rudiger ayaa isaga kulanka ayaa diyaar u ah ciyaarta maanta loo yaqaano Super Sunday. 30 daqiiqo ayuu kulankan ka bilaaban doona garoonka Old Trafford. garsooraha caanka Martin Atkinson ayaana ciyaartan dhexaadin doona. United ayaa badin karta markii la eego markii saddexaad oo xiriir ay gurigeeda kula ciyaaraan Chelsea markii ugu horeysay 1957. kooxda reer London ayaa badisay 18 kulan Premier League oo la ciyaartay United waa in ka badan guulaha ay ka gaartay kooxaha kale. Chelsea waa kooxda labaad ee ugu guulaha badan ay ku gaar Old Trafford iyagoo ku badiyay 6 kulan marka laga soo tago City oo ku badisay 7 dheel. United ayaa la kulmi kara 2 guul daro xiriir ah oo garoonkeeda ku soo gaartay markii shanaad waxaana ugu dambeysay bishii March 2014 xilliga waxa macallin kooxda ka David Moyes. Red Devils ku guul dareysatay inay shabaqa soo taabtaan 3 dheel ugu dambeysay balse ma aysan dhicin 4 kulan oo xiriir ah aysan gool dhalin bishii October ilaa November 1992. Chelsea ayaa qasaartay 6 ka mid ah 7 dheel ee Premier League wajahada kooxaha ku jira 10 hore marka laga soo tago 2 gool kaga soo adkaadeen kooxda Watford maalmihii Boxing Day-ga. Blues ayaa guulaana dheel Horyaalka ay booqdeen kooxaha 6 ugu sareeya Horyaalka tani guusha ka gaareen kooxda Tottenham bishii August 2017 wixii ka dambeeyay 2 baraaji 6 khasaare ay la kulmeen kooxda. safafka macquulka labada naadi David ayaa shabaq ilaalin kara Ian Smalling, Lindelof, Shaw, Pogba, Fred, Herrera, Lingard, Rashford iyo Lukaku, halka Chelsea as ninka lagu magacaabo shabaq ilaalin doono Kepa Arrizabalaga, Emerson, Luis, Christensen, Azpilicueta, Barkley, Jorginho, N'Golo Kante, Hazard, Higuain, Pedro iyo ku soo gali kara hogaamiyaha Talyaaniga Maurizio Sarri. kulanka adag ee la daaman doona 6 barka waana dagaalka 4 sare Champions League. qaybihii dambe muuqaalka maanta gool ayaan isla soo gaarnaa asxaabteena meel walba joogtaan duhur wanaagsan. markana waxaan aadi doonaa dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxyaabihii maanta ugu waaweynaa ugu xiisaha badnaa iyadoo maanta suuqa waxyaabaha ugu waaweyn ay qayb ka tahay Rafael Varane, Harry Maguire, tababare Rafael Benitez magacyo kale oo maanta lagu arkayo markii la eego suuqa kala iibsiga. kooxda United ka qadkeeda dhexe Paulo Pele Pogba 26 jir ayaa u sheegay naadigiisa markii la eego Manchester inuu doonayo dhaqaaqista naadiga Real Madrid. xiddigan ayaana jecel isla sanadan markuu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda inuu ku biiro naadiga Spain ka dhashan ee cadcadka ama Real Madrid sida ay qortay AS. Juventus ayaana doonaysa dhankeed inay dib u soo celiso wiilkan ama Turin ay ku soo celiso Paulo Pogba ka 100 milyan ee waqti hore ku siisan naadiga Manchester United. isla Juventus markii la eego ayaa dhankeeda daneynaysa iyadoo PSG ayaa ku dagaalamaya 20 jirka shabaqo ilaaliyay naadiga Red Devils David De Gea sida ay daabacday Leon Sport oo ka soo baxay dalka France. Manchester waa dhan kale Manchester City ayaa dhankeeda daneynaysa daafaca dhexe kooxda Leicester Harry Maguire. dabacooyinka wiil ka tirsan ayaa lagu qiimeeyaa 90 milyan markii la eego 26 jir xilli Pep Guardiola uu daneynayo inuu gacanta ku soo dhigo wuxuu hore ugu goobay soo qaadashada joog dheeraha Holland iyo kooxda Liverpool Virgil van Dijk sida ay qortay Sun on Sunday. Paris Saint-Germain lagu daray Marseille oo ka wada dhisan France ayaa ku dagaalamaya hogaamiyaha kooxda Newcastle United Rafael Benitez macalinka Real Madrid sida ay qortay Sunday Mirror. PSG iyo Marseille ayaana dalab u gudbiyay macalinkan markii la eego waqtigan ka xamaashay horyaalka Premier League. Real Madrid hogaamiyaheeda Zinedine Zidane ayaa waqtigan daneynaya inuu iska fasaxo xiddiga caanka ee Gareth Bale soo soo qaato 29 jirka kooxda Chelsea xulka Belgium ka soo jeeda ninka lagu magacaabo Eden Hazard ka isagana la xiriirinayo soo dhaqaaqada kooxda cadcadka Real Madrid sida ay qortay marka. dhanka kale kooxda Napoli hogaamiyaheeda Carlo Ancelotti ayaa u sheegay markii la eego xiddigiisa Khalid Koulibaly inuusan ka celin doonin haddii uu doonayo inuu ka dhaqaaqo kooxda Napoli. Manchester United ayaa u xiisanaysa 27 jirka Senegal ka soo jeeda
halka 27 jirka kale ee Lorenzo Insigne lagu magacaabo oo dalab ka helay kooxaha Chelsea iyo Liverpool. Hogaamiyaha ayaana sheegay haddii ay doonayaan wiilashan inay ka bixi karaan kooxda uusan celin doonin sida ay qorto Mail on Sunday. Real Madrid laacibkeeda da'da yar ka ah City ka yimid waqti dhow ee Ibrahim Diaz 19 jir ah ayaa waqtigan leeyahay qaab amaah iyo kooxda looga diri doonaa xilli ciyaareedkan sida ay daabacday Marca. PSG 70 milyan ayay ku doonaysaa wiilka markii la Juventus qadka dhex kaga ciyaara Milan Pjanic oo zareeda qayb ka ah ka 100 milyan markii la ku doonayso kooxda Juventus sida ay qortay Corriere dello Sport ka soo baxda dalka Talyaaniga. warbixinadan ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. markan waxaan eegi doonaa gabagabada ah kulamada caawa la ciyaari doono iyo galabta horyaalada kala duwan marka la eego Premier League, horyaalka Zareeda, horyaalka dalka Spain ee loo yaqaano La Ligaha. Premier League maanta kulamo aad u xiiso badan ayaa la baashaari doonaa markii la eego kooxaha afarta sare way dagaalami doonaan. kooxda hogaanka laga heesto waqtigan ama lagala wareegay ee Manchester City dhankeeda waa ciyaari doontaa kulan xiiso badan, laakiin Arsenal ayaa kulanka ugu soo horeeyay wajihi doonta kooxda Leicester City ama dawacooyinka oo kulan aad u xiiso badan Gunners ay ciyaari doonto. ciyaarta kale Burnley iyo Manchester City ayaa baashaali doona 10 saac. kulanka Arsenal Leicester wuxuu soo dhici doonaa 8 saac duhurnimo. Manchester United iyo Chelsea waa kan ugu adag la sugi doono 12 qadar 30 daqiiqo ee maghribnimo ayaa kulankaasi la ciyaari doona. Premier League saddexda kulan ayaa jiri doona. Zareeda Frosinone Napoli waa ciyaari doonaan, Kiev Parma, Espal iyo Genoa, Sampdoria Lazio, Torino iyo AC Milan caawa 3 saac bar ay wada baashaali doonaan markii la eego horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A. horyaalka dalka Spain Spanish ka ama Spain La Liga kulamo la ciyaari doona xilli horyaalkaasi lagu kala baxay ee ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ama hanatayba ugu dambeyn Real Madrid dalkeeda iyaduna way ciyaari doontaa markii la eego horyaalka Spain. Valencia iyo Eibar way ciyaari doonaan ama Hoseki Eibar kulamada la soo ciyaaray qayb ka yihiin. Barcelona xalay Deportivo ka adkaatay 2 gool ugu dambeyn gacanta laga saaray horyaalka dalka Spain maadaama ugu dambeyn kooxda ay hanat mar kale way difaacatay taalo waxa xasuusto Lionel Messi isagoo kabtan ah markii ugu horeysay marka la eego inuu ku guuleysto horyaalka dalka Spain. Capitano Leo ugu dambeyn sida ayuu ku hantay koobkaasi. Spain kulamada aad u xiiso badan ma jiri doona marka la eego oo caawa la ciyaari doono. markii la eego Real ayaa ugu adag iyaduna caawa ciyaar doonto ciyaar aad u xiiso badan iyadoo wajahayso naadiga Rayo Vallecano iyo Real Madrid. 4 saac dhiman ayuu kulanka soo dhici doona. waa Real Madrid iyo Rayo Vallecano, Getafe, Real Sociedad, Villarreal iyo Osaka, Girona iyo Sevilla waa ciyaari doona. kulan hadda socdana Valencia iyo Eibar dheesh hadda soconaysa 30 daqiiqo kulanka socda isaguna waa Eibar. waa kulamada ugu xiisaha badan horyaalada kala duwan ee lagu madalsan yahay in la ciyaaro markii la eego Rayo Vallecano iyo Real Madrid waa kan Spain ugu adag ee caawa la daawan doona. gabagabada soo gaarnay kulamada ay ahaayeen kuwa ugu xiisaha badan la sugi doono indhaha caalamka maanta wuxuu ku hayaa kulanka adag ee Premier League ay wada ciyaari doonaan kooxaha Manchester United iyo Chelsea. maqribkii ayuu kulanka soo dhici doonaa waa kala sugi doono. United ka xaaladda ku xun kulamada ugu dambeeyay waa laga adkaaday waliba gurigooda City ku garaacday. marka waxa leeyahay caawa haddii ay ka adkaadaan Chelsea in ay u tartamaan Champions League in loo soo baxo rajadoodu way wanaagsanaan doontaa, halka Chelsea faa'iido ugu badan iyadoo ay haysato maadaama kulamada ugu dambeeyay ay guul soo gaareysay inkastoo kulankii ugu dambeeyay ee barbar la soo gashay naadiga Burnley ciyaar ka dhacday garoonka Stamford Bridge. kulanka wala arki doona wax ka soo baxo Arsenal inay badas waajib ku tahay maadaama Chelsea United iyo United-ka in ay dagaalamayaan iyo labadooda mid ay kuftana Arsenal booskooda ay sii joogi doontaa, laakiin United ay bariso Arsenal booska shanaad ka bixi doonto lixaad ay gali doontaa. wala arki doona sheekooyinkaasi kulamadii ka soo baxa doontiin kala daawan doontaan. guli gunaanadkii muuqaalka maanta gool Karama farsamada iyo muuqaalkan quruxda badan qaadayay anigoo heer ay halkan ka soo jeedinay muuqaal caynkan oo kale intaan kulmi doono sida